السلام عليكم. كنت دي مو wanaagsan channelka daawanaysin waa Hajir Bro. Hadii aad markii kugu horeysa aad soo booqato waxaan rajeynayaa adigoon cidna ku qasbeenin inaan ugu soo biiri doontid dawrun wada joogtay waa mahadsan tahay. Sidoo kale page kan ku leenahay Facebook oo isla Hajir Bro waxaan jecelnahay asagana inaan soo kobcino kor u soo qaadno fadlan ha hilmaamin inaan asagana follow gareysaan. Safarkeena wuxuu ka soo bilowday magaalada Wajaale ama degmada Wajaale. waxaan joognaa maanta magaalada Dhuusmareeb sidoo kale waxaan rabnaa magaalada Dhuusmareeb inaan ka soo tagno oo aan toos u soo aadno magaalada Muqdisho anagoo soo marayna cirka waana markii noogu horeysay aan diyaarad fuuli doono adventure-kan halkaan ka bilaaban doonaa. diyaaradii Juba hadda soo degtay sidaad u jeedaan waxaan nasiib u yeeshay markii ugu horeysay inaan raaco diyaaradaas very long time. Okay, diyaaradii aan saaranahay waxaan isku dayaa meel walba ay maraysaa ama qaab walba u socotay inaan duubo. markii ugu horeysay kor u soo kacday hawada dhaxana ay marayso laakiin weli aysan gaarin caadka. waxaan isku dayay inaan fiiriyo suuligeeda sidee u eg tahay. waa meel yar oo cariiri ah markii runta laga sheego oo la fiiriyo. meel yar ku taalo wax badan meesha ma yaalaan sidaan arkay. shaamba yar oo gacmaha lagu dhaqdo intaas le mooye. laakiin waqtigaas aniga ahaanteeda oo ku faraxsanaa inaan arko musqusha diyaaradda sidee u eg tahay. marka saas uma xumeen fiiriyo. Okay, markaan meesha marayay runtii aadaan u dhiidayay baqdana ay ku jirtay. marka qaar buskud yar oo doolshayna siiyeen waaye mana xumeen u macnaa. diyaaradda way saldeenay dadkii fulaya garanayo waxaan isdhaaniyo culeyskaaga ama u saldeenay kor u kacay marka. Okay, markaan meeshaan joogno maxaa maskaxdaada ku soo dhacayo? waxaan noo soo arfayo. Okay, haddaan gartay waxaan noo soo arfaysa wax kale maaha waa magaalada Muqdisho. aan muddo ka maqnaay waqti aan ka maqnaa waa xeebtii maxaa yeelay waxaan u dhownahay eelaboorka. mar haddaan lagu xafidsanana waxay ka dhigan tahay mar dhowaan xaga dhiganaynaa magaalada Muqdisho. laakiin si aan eelaboorka u gaarno waxaa qasaba xagga badda inaan marno si aan eelaboorka ugu soo degno. alright, welcome to Muqdisho. marka magaaladii aan dhimaanay mar dhowna waan caga dhiganaynaa. bahashaan runtii cabsi weyn igu abuurtay oo aad u baqaayay. mar dhow cagahan dhulka ku dhufsanaynaa waan ku dhufsanaynaa cagaha dam waka si fiican u dhigan wixii daarta qabacda naga yeertaan ku waxaas dhaaniyo ama cagaha ka kala faniinaanba xabadka dhulka dhigataan. laakiin wuxuu ahaa runtii waa wax laga sheekeeyo waaye. your first time markaad soo raacdo marka kugu horeysa aad soo raacaysa diyaarad ay tahay waxa waaye adiga dhan lama filan waaye moogta. waa kana eelaboorka ugu mashquulsan Soomaaliya aadan cadda airport. xariifka waa kana marka xariifka wuxuu iska dhigayaa nin diyaarad ka soo degay. markiisa waa la socdaano eelaboorka la dhaxli weynayaa. runtii eelaboorka maasha Allah shaqaan caadi ahna ka socoto. qaybo walbo eelaboorkan waxa u muuqda inuu yahay mid aad u mashquul badan. diyaaradaha alaabta la dejinayo dadka ka soo degayo markaad banaan ka timaado waxaa jirta shirkad la yiraahdo Sahal oo u shaqeysa bulshada ka soo degaan eelaboorka si ay u gaarsiiyaan magaalada. shirkadda runtii baawar waxay diyaarsataan caadi ahaan. marka waxaan idin leeyahay nooli kulantee fiidiyogan halkaan ku eegyahay fiidiyoyo kale qurux badan oo imaan doona inta ka horeyso maalin wanaagsan.